Bismillahirrahmanirrahiim waxaan u wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xilidan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafici Show waa 29ka bisha 6aad 2026 marka hore saaxiibada aan halkan ku midowniyo waxaan idinka codsanaynaa hadii uu barnaamijkan ka hor yimaado in meel fogaad gaarsiisaan like iyo share tana aad inaga baqiilin aynu ku bilownay Pakistan ayaa weerar dhul iyo cir ah saacadihii ugu dambeeyay ka furisay xadka ay la wadaagto Afghanistan iyadoo duqeymo ay ka geysteen diyaaradaha Pakistan ay ka dhaceen magaalooyinka ku yaala gobolka Paktika ee Province iyo Kunar Province ee dalka Afghanistan weeraradan waxa ay Pakistan ugu jawaabtay weerar ismiidaamin iyo mid toos ah oo dagaalamayaal ay shalay ka fuliyeen saldhig ciidan oo ku yaala Karachi sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Pakistan Ayatollah Tarar oo sheegay in weeraradan in lagu beegsaday xarumaha kooxda Jamaatul Anhar isla markaana lagu dilay xubno sare oo kooxda ka tirsan iyo 29 dagaalame dhanka kale Afghanistan iyo dawladda Afghanistan ayaa sheegay ama afayeen u hadlay ayaa sheegay oo lagu magacaabo Zabihullah Mujahid waxyar ka hor cambaariyay weerarka ay Pakistan ka geysatay dhulka Afghanistan isagoo ku tilmaamay fal fulinimo gardarro isla markaana dambi arxan darro leh kale dawladda Iran waxa ay ciyaaraysaa farsamooyin aad iyo aad cajiib ah mar walbana dagaalka waxa ay ka dhex raadinaysaa fursado mar la araga Iran waxa ay joojisay wafdigii u safri lahaa Switzerland si ay ugu qayb galaan wada hadallo farsamo oo la qorsheeyay Axadda shalay in ay furmaan iyadoo sababta go'aankan ay ku sheegtay inay la xiriirto Mareykanka in uu jebiyay afgaradkii lagu gaari lahaa xabajoojinta kadibna weeraro uu fuliyay gudaha Iran go'aankan kadib waxa xalay soo baxay Trump waxa uuna ku dhawaaqay inaanan wax weerar ah oo dambe lagu qaadi doonin Iran isla markaana uu doonayo inay Iran ku soo laabato miiska wada hadalka mar kale Iran ayaa soo laabatay waxa ayna ku xirtay wada hadallada in la fasaxo lacagaha Iran ka xayiran Iran markasta waxa ay adeegsanaysaa istiraatiijiyad ah in ay hesho waqti badan marxaladda joojinta dagaalka lagu jiro si ay u hesho faa'iidooyin ka degdeg badan arrimihii hore oo lagu wada hadlay haddii aad xasuustaan Mareykanka waxa uu Iran weerarkii koowaad ku qaaday iyadoo Iran aysan haysanin oo ay ku raasato cunaqabataynta in laga qaado dibna ay u qaabayso xiriirka dalalka khaliijka iyo helitaanka lacagaha balaayiinta ee laga xanibay intaan waxa ay ku heshay in ay xirtay marinbiyoodka Hormuz oo haddii dagaalkan uusan dhici lahayn ay adkaan lahayd in ay xirto hadda istiraatiijiyad labaad oo kasii khatar badan ay ciyaaraysaa Iran oo waxa ay markaan ku xiraysaa in wada hadalladiiba ay ku soo laabato in lacagii loo fasaxo isla markaasna cunaqabatayntii laga qaado taas oo Mareykanka ku noqon karto dhabarjab aad iyo aad u xoogan